arrinka afraad wuxuu yahay yaa cibaad allah waxaynala gudboon inagu haddaynu muslimiinta nahay inaynu ku camal fallaynu dhaqan gelinno markay xanuunadan faafaa soo ifbaxaan iyo xaalad walba التعاليم الإسلامية الواقية من انتشار الأوبئة والأمراض talooyinka diinteena islaamku ay nasiisay ee ku salaysan waxyiga ilaahiga ah ee afariimo xagga allaha khaaliqa ah ee addoomaha cid ka taqaana dantoodana uga ogaal badani aanay jirin alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiif alkhabiir maanta haddii la yidhaahdo munadamatu asixa alcaalamiya ururka caafimaadka ee adduunyada ayaa talooyinka noocaasiya soo bixiyey si looga badbaado xanuunada faafa aad baa loo qaadqaadayaa oo loo sheegayaa oo la isugu dhiibdhiibayaa oo la isugu wacyigelinaya oo wasaaradaha caafimaadku ay u wadwadayaan oo dhakhaatiirtu ay ugu hadlayaan laakiin kaana lanaa qabla tacliimaatihim تعليمات إسلامية إلهية نبوية نافعة أكثر من نفع تعليماتهم إنه وحين وهيسني تلوين كودا هرتود تلوين حق إلهي نوغيم ونبي محمد نوشاقي تلوين ديني ودين عبادك إلهي لو قد وادو دين عنك وانفعي وصابوا نقنايا إنه إلهي حنون ذكا إلاليه waxaynala gudboon tacliimaadkaasi inaynu ilaalino waxaa ka mid ah taqdiyat alaaniya nabigeena calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay weelka in la dabool-la-aan lagaga seexan sanadkiiba mar xanuun baa soo baxa buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam weel kasta oo af bannaan ayaa xanuunkaasi u galaa macnuu wuxuu noqonayaa qofkii weelkaa isticmaalay xanuunkaasi waa uga soo gudbi karaa markaa ka hortagu waa maxay weelka in la daboolo waxaa ka mid a tacaaliimtaasi cadamu nafki fi sharaab waxaad cabbaysa inaanad afuufin ha noqdo shaah ha noqdo caano haddaad saxar ku aragta iyo wax kaloo aanad jeclayn inaad ka gembido saa intaad u yaro jeerjeeriso aad ka tuurto ama aad ka saarto wey laakiin inaad afuufto islaamkuma ogola raashinka la cunaya laftiisu hadduu kulul yahay iska qabooji laakiin ha afuufin dad baa kaaga dambayn kara weelkaa isticmaali kara microbaat iyo bacteria adiga kugu jirtay baa raaci karta afuufitaankaagaas waxaa ka mid a saas oo kale cadamu tanafusi fi linaa haddaad weel wax ku cabbayso sida xoolaa waxa u cabbin oo qurquro dabada ha isu gelinin markaad dareento inaad u baahan tahay inaad neefsato ood naqas iska soo saarto weelka afkaaga ka foge nebi maxamed baa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a sidaas oo kale cadamu likhtilaati bilmusaabiin qofku hadduu isku og yahay xanuunada isdhexgalku inay tallaabaan ay gudbaan sababu u noqdo alamraad almucdiya waa inaanu dadka dhex gelin xataa salaatu ljumuca waljamaca waa inaanu iman oo gurigiisa uu iskaga tukado qofku hadduu xanuunka noocaasi uu isku og yahay qofka caafimaadka qaba laftiisu dadka xanuunada tallaabo qaba waa inaanu iska dhex gelin oo si xanuunkaasi inuu usoo tallaabo sabab u noqon karta waa sababuune tallaabistu talada ilaahay bay ku xidhan tahay waa inaanu dadkaasi u dhex gelin oonu ula dhaqmin laa yuuridu almumridu cala almusixi rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka xoolihiisu ay xanuunsanayaan yaanu xoolihiisaasi aanu ku darin oo aanu u geynin ka xoolihiisu ay caafimaadka qabaan xoolaha u haysto xoolihii baa sidaa la yidhi bani aadamkan waxaad malaynaysaa waxaa ka mid a saas oo kale haddii waddan lagu sheego xanuunkaasi uu ka soo ifbaxo qofka muslimkaa waa inaanu u safrin qofka joogaana waa inaanu ka soo bixin waa xajrun صixiyun
jaa bihi اlislaamu qabla tacliimaati aطibaaئihim waa karantiimeyn caafimaadka la xidhiidha oo islaamku uu sheegay 1400 oo sanadood hortood ama muddo ku dhow horteed inta aanay dhakhaatiirtoodu talooyinka noocaasiya iyo aqoonta caafimaad ee ay sheeganayaan aanay gaadhin. cumar ibnu khadaab radia allahu canhu isagoo amiiru lmu'miniin oo shaam ku socda oo uba dhowba ayaa waxaa loo sheegay in xanuunka daacuunka la dhahda uu ka dilaacay. waxaa la socday cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabiga la dhaha wuxuu ku uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi haddii dhul aad ku maqashaan daacuunka ha gelina kuwa ku jiree joogaan ayaanay ka bixin.